Aaba Gacaliye kusoo dhawow channelka Yusuf Shire. Waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysid anagu miyaynu wada dhalin maxaa Cabdiqanigii looga booday marka taasna waxaan filayaa aanan ka boodin magaciiye aan sahlanaanta uu sahlan yahay magaca Shire aan u soo qaatay saa Yusuf Shire aan u doortay marka mar labaad kusoo dhawow channelka waxaan rabaa maanta inaan wax ka weydiiyo noloshaada iyo waayo aragnimadaada iyo hadii Ilaahay ku ogol yahay wixii aad talo iyo tusaalo siin lahayd dadka channelkan ku xiran marka maxaan kuugu yeeraa waxaan ogahay inaan nin magacyo badan tahay oo aan naynaasa badan wadankii iyo looga yaqaano marka maxaan kuugu yeeraa magac noocyo kuugu yeeraa والهابو أنا حقيقي وحن شعلهاي هدي قف كستا وحو شعليا وحي دمايسترن أما ماركتي اللغو فهمي وجهي يعني وحو ماركتي أي دمايستريهين هدي أي نصيهين وحوي حوجا واحد مدعيني كانني أي مقنطاي marka aniga laba qodob waa isticmaalayo si qofku ay u fududahay magacayga Said Cabdiqani wali Faysal kaliya haduu yiraahdo xataa wax weyn ma laha ولكن أنا قابك أن أجعل هاي أما أن أدي هذا وفرحه وحوي مركي لما يسترو أذوق بنا الدوات قرنا يسألوا بيجوا كقرنوا واحد لما يسترني واحد يعني كلا دمن نصفها فرق جودة حية واتقرن كذا مركب مثلا واحد شرب برا أنا وحتى وحكو بحيو قفكم مركو مقعد لما يسترو الشيخ معلن حاجي شريف ديري السيد عبدالغني ولي فيصل محمد سعيد نور ظاهر الشريع وحوي وحياه بدنا أنا أنكو بحيو أنا أب وحنا حسوستا السوق قبل هذا السيد عبدالغني ولي فيصل الشيخ نور ظاهر الشريع marka update miyaa lagu sameeyay ma kuwa kale lagu soo kordhiyay adigu markaasna soo koobid amal bay ahayd magac uu dhameystiran yahay waxa weeye Sheikh Macalin Xaaji Shariif Diiriye al halka hakad baa soo garay al Sayyid Cabdiqani Wali Faysal Maxamed Saciid Nuur Daahir Shire waxa weeye xaqiiqdii waana uga duceeyaa waana uga abaalgudaa waayo waa wax dhameystiran oo adigu halka waa ka garanaysa Cabdiqani Wali Faysal haduu iska yiraahdana waa iska iyaduna maaragtay waa iyadii oo magacii maaragtay marka laakiin qofkii magac fuul oo dhameystiran xifdiya wuxuu leeyahay abaal gud xaqiiqdii waxa weeye qaar waa u duceeyaa aan iraahdaa jazakallahu khayr qaar yaani maaragtay dhalinyaro oo markaa iska baahan iyo waxa jirta wixii markaa ama hawl uu iga leeyahay inaan maaragtay xil iska saaro oo aan maaragtay u fududeeyo kulli waxaan jeclahay qofkaas aniga dadii ugu ma jiro ما شاء الله قفكي مقعد فول دمية وحوي أمانية أنا أمانية هاي أبال بونو يقولي بكلية أبا وهكذا وياها الشيخ معلن حاجي شريف ديري السيد عبدالغني ولي فيصل محمد سعيد نور ظاهر الشريع وربي قرد مركا أبو هي أمانتونا دي وحوي كما سواها marka waxa weeye qofkan markii la amaano xasha lilaahi waxa weeye muqoona kula ma harin ninkaas markii ku caayana dagaal kula ma harin inta magaca ku jirno aniga yaa Yusuf bixiyay Abu Yusuf horta aniga ku bixiyay macnaha marka waxaan isleeyahay xulasho lama aad harinin horta ina yaro waxaad ahayd qurux badan baad ahayd markaas waxaan soo xusuustay heeskii ah nabi Yusuf quruxdii qaadir uu ku uumaad qumano adna qayb ku leedahay warbay garatay abow marka waxa weeye magacaas sifaalahaas baa keenay teeda kale wax qadaran ayuu ahaayo waxa li Soomaalidu waxay ku maamada magac waqba bixiya warbay garatay ama qof waliba wuxuu galabsadaa loo gorgoriyaa qaar baa maaragtay madoobe iyo hurre iyo maaragtay ilay iyo neenaaso qofna daahir iyo wali iyo sida magacyadeedaas oo kale Sheikh Macalin Xaaji Shariif way garatay magac fiican weeye waana aad baan ugu faraxsanahay in magaca ay bixisay waana kaaga mahad celinayaa channelkan waxa ku xiran dhalinyaro badan oo ila daa oo waxa weeye dunida iyo noloshu hadda u bilaabanayso waxyaabo badan ku haminaya waxaan jecelahay dad sidaadoo kala waaye arago dunida ama wax soo bartay ama khibradooda nin ka weyn garaad ka weyn ilaahay aqli iyo cilmi siiyay dhulna maray inaan xikmadooda isticmaalno aan ku dabaqno nolosheena marka aniga daadeeda ahayd xagee joogtay ma xusuusataa maxaad si qabanaysaa walaaba waan xusuustaa
27 markaan jiray markaa waxa weeye meesha la yiraahdo Puntland joogay xaas baan lahaa warmay garatay ilaahay duu koraya wiilka Maxamed ah baana jiray markaas waxaan ku hameeyay ganacsi yar oo hooyaday iyo maaragtay meeshaasaan deganayn meeshii waxayna ahayd aan nolosha iyo ganacsiga iyo maaragtay waxa aan ka bilaabay bay ahayd marka ab sidaas ahayd haddii aad maanta la xiriiri kartid ama la talin kartid Cabdiqani Shire oo 27 sano jira maxaad kula talin lahayd walaabo waxaan kula talin lahaa number 1 qofku inuu wax barashada ku dadaalo warmay garat waayo qofku hadduu soo wax aqoon waxaad moodaa ama cilmi baran waxaad moodaa inuu san meel sare waxba gaari karinin waxay ku khasbayaaba inuu qori qaato waxooga maahane meeshii yani maaragtay process u maro yani maaragtay noloshii ma ay jirto aniga horta la marwo waxaan kula talin lahaa qofku inuu wax barashadiisa uu ku dadaalo warmay garat dabadeedna markaa nolosha uu kala doorto oo isagu habda meeshii uu maaragtay doorbida ama ay ku macaanta uu ku amiyo inuu markaa ku dhaqaaqo waalidka Awowe Shire iyo Ayeeyo Isniino tala ay ku siiyeen oo aad ila hadda xusuusatid ma jiraan maxay kugula taliyeen wallaahi abo waxay ugula taliyeen xaqiiqdii waxa weeye waana ay ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay jazakallahu khayr ilaahay naxariista ka waraabiyo waxay ku dadaali jireen ama igula tali jireen sidii aan wax ku noqon lahaa ama aan wax ku qabsan lahaa ama la jeclo iyo maaragtay kasab aan ku yeelan lahaa dabadeedna waxyaabaha igula taliyeen aan guul ka gaaray waxa ka mid ahaa inaan guursado warmay garatay si ilaahay awlaad iyo maaragtay aan u helo waxay ugula talin jireen inaan shaqaysto waxayga dhaqaalaysto oo si aanan ninna u baryin ama maaragtay aanan u dayacmin waxyaabihii kaleeto waxaa ka mid ahaa inaan maaragtay xagga diinta iyo cibaadadeeda soonkayga iyo salaadeeda iyo sakadeyda iyo kulli inaan wado ayay ugula talin jireen warba tukatay wartuko quraanka baro marka aad iyo aad bay soo barbaariyeen jazakallahu khayr maasha adiguna sidoo kale si fiican baa noo barbaarisay jazakallah ma jirtaa dhacdo noloshaada wax ka bedeshay oo ama taariikh aad isleedahay maalinkaas nolosheeda wax badan baan ka bedelay dhibaatooyin badan baan soo maray intaanan aabbaha iyo hooyaday u imaanin oo nolosha aanan la qaybsanin dee dhibaatooyin badan baa jiray bil xaqiiqa marka waalidka u timi baa noloshaada markaasaan isbedelay taladoodii baan qaatay waxoodii baan qaatay dabadeedna waa soo weynaaday dabadeedna nin weyn oo dee markaa baan noqday ganacsigii yarka ahaa iyo maarigaygii iyo wixiigii dukaankaygii aan iska galay dabadeedna alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ka gaaray ma jiraa wax aad kaaga qosliyo wax aad ku farxad geliyo maxaa aad ku farxad geliyo ama aad kaaga qosliyo wallaahi aabbo dee waa aragtay qofku maalintii waxaa laga yaabaa inuu 10 jeer 20 jeer inuu ilka cadeeyo ama qoslo warmay garatay waxaa laga yaabaa maaragtay hadal ama sheeko markaa meesha ka dhacaysa ama waxaad daawanaysid oo maaragtay aba yaraatee facaayil yani markaa kuu muuqday inaad iska qosasho waa laga yaabaa waa wax suuragal ah mid been sheegaya beenta uu sheegaya inaad qoslo ku qosasho warmay garatay marka waxa weeye baalka qosolka ah waxaad moodaa inuusan isagu habeenkii iyo maalintiiba waa iska deeyaamaanaya maaragtay ganacsiga way maanaynaa muddo dheer baa ganacsiga ku jirta dad badan oo channelkan ku xiran waxaa jira iyagana danaynaya inay ganacsiga bilaabaan ku haminaya inay isku filnaadaan marka ma jira qodob ama laba qodob oo asaas u ah ganacsiga oo qofkii raba inuu hanti sameeyo xalaal oo wanaagsan ay tahay inuu ogaado waxaas waa inaad barataa ama ogaataa ama ka taxadartaa ma jiraan laabo wax badan baa jira xaqiiqdii xaqiiqdiina qofku inuu shaqaysto wuxuu doona wax ka shaqeeye waa arrin daruuriya weeye مثلا قبل بقى واحد كشري معنا وين وحكاجة ما تران ما لقوا قرأ مدكتاد وحي حوجسو بما يرجع كذا مجوسة هالشذا كرون ميدانا كله واحد الوصية واحد بريضة واحد بعيسية واحد كمدكتاد وحي حوجسا ما يرجع كذا ورما يقرض مركب وحوي
aad iyo aad qofkuna waxaan aaminsanahay aniga markuu ku talagalo inuu ilaahay hadduu kuu roon yahay wax qabsado wax ganacsado shaqaysto xooggiisa cuno waxaan qabaa aniga inuusan la kulmayn wax dhibaato ah warmay garatay iyo saboolnimo midna uusan la kulmayn waayo wuu shaqaysan xooggiisa cunaya iyo xirfadiisa warmay garatay marka waa midigtaadu waxay xoojisaa meero gaajada marka aniga saasaan qabaa waxaa jira oraha aad leedahay oo aan dhowr jeer kaa maqlay oo aan aaminsanayna ganacsigana door weyn ku leedahay tahay qodob muhiima falsafada ah magaaladu waa fardadiday bal ii macnee ahey fardadiday waxaa looga jeedaa farduhu hadday didaan semberi isku duubnaan mayaana midba meel buu ku haraya ama midba mustawi buu gaaraya waxa weeye fardadiday bay marka noqonaysaa kaasi qiimo gadaya kaasina qiimo gadaya kaasi qiimo gadaya kaasi qiimo gadaya marka waxa weeye wax isku base ah oo maaragtay ma ay jireen sidaan anigu I don't know waxaan qalabkan yani casriga walaakiin biica waxa weeye number 1 inaad adigu ijtihaadid haddaad waxaad doonaysay inaad yani waxa ugu sahlan oo aad ku soo ururisid warbay garatay haddaad bahasha iska horgufaysid waxa weeye iyadu waa baab gaar weeye laakiin markaad ku mintidaysid waxa weeye wixii waa baayacaysa kana waa baayacaysa kana waa baayacaysa kana waa baayacaysa dabadeedna midka ugu jaban ama kuugu dhib yar baad markaa qaadanaysaa ninba meeshii laga helaa lagu dilaa warbay garatay sida aawadeed waxa weeye fardadaday sidaas bay ku yihiin waa runo buug waxaan akhrinay maalin dhaweyto saasoo kale ganacsi wada hadalka ka hadlaya marka qodobkaas oo kala center u ahaa wuxuu leeyahay xogta haysid waa muhiim oo waxa weeye goorta suuqi la socotid meeshu qiimuhu kala joogo cidina ku harawsan mayso oo xogta aad u hayas barbar dhigaysaa kay kala u sheegaysaa waxdaas war suuqu intaas u maraya iyo xagaas marka ina xog haysid waxa weeye waxay ka caawinaysaa inuu ganacsigaagu talaabo hore u qaado fardadiday marka waxa weeye fardadiday midba mustawi buu joogaa ama midba meel buu ku haraya markay didaan oo ordaan dukaamadii ama ganacsadii ama warshadihiina sidaas oo kale yihiin kuwa badan baa discount wax la yiraahdo ku sameynaya kuwa badan baa wax kugu daraya marka waa inaad adiga maaragtay xog hayso waxa taa qof aad u shaqo badan wax badan baan arkay oo aad u shaqeyso oo dadaalayo meel kasta ka dhacayo oo jiiro iyo meel adag iyo meel kastaba uu maray soo hawlihiisa go'aamadiisa iyo qorshihiisa qabsado maxaa ku dhiirigeliyay maxaa aad ku dhiirigeliyay walaa abu waxa aad igu dhiirigeliyay horta qofku jaaniska inuu ka faa'iideysto weeye marar badan oo waxa jira qofku uu sanawad u lahayn inuu inta oo dhula isu maro marar badan oo marka waxa jira ay u fududahay inuu isu maro mideeda kale taha deeyaaba nin doonay maal dalaala aan horteed u duubayoobin intuu dara fandhaalka dibnaha mudsan maayo ogow iga dambeeyo dan iyo xaraga isdiiday warbay garatay waxa weeye marka waa inuu qofku jabo warbay garatay abba waxa weeye marka aniga waan ku khasbanaa inaan ordo oo rooro oo maaragtay dhexda xariga dariiqa kaliya aan marayo ama markaa ila gudboona ama aan ku liibaanana ilaahayna uu ila gartana wuxuu ahaa orodkii kaasuu ahaa